nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusay dhismayaasha jannadu xabad labani waa lacag xabad labanina waa dahab mifsalka ama waxa la isugu dhajinayaana waa miskiga aad ka udgoon kuus dahaba ninka hela xabad labanahoo dahaba qofka hela imika dee dhiisha faqrigaa u tuuri lahaa xabad labana balkiibaaba wuxuu noqday mid daara la iskaga dhisayaba quruurixeeduna waa lu'luuda dhalaalaysa nooca u qaalisan buy ciideeduna waa guduudka iyo quruxda leeda waa sacfaraanka udgoon aadka u qaaliga waxa ka siiya badan oo nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam ehelka galaya allah inaga yeeleen waxa uu qofka muuminka ah waxa uu ku leeyahay jannada bangalaad weyn lu'luubay ka samaysan tahay ballaarkeeda iyo cabirkeedu waa 60 mayl buu 60 miilan 60 mayl waa imisa kiiloomitir waa 90 kiiloomitir ugu dhawaan bal waayahay meesha guriyahaaga mid ka mid ah 90 kiiloomitir halkan magaalooyinka caalamka u waaweyn baa la yiraahdaa 90 kiiloomitir bay gaaraan murabbacooda adduunyada magaalooyinka u waaweyn ee 20 milyan iyo 30 milyan iyo ku noolyihiin ma baalu kanin baa gurihiisii boqolaalka ha mid ka mid 90 kiiloomitir yahay sidoo kale oranaya halku fariisanaya iyagoo cajaay meesha in la dhargo lagu warwadhay ayaa meesha ka muuqanaysa waxa ka yaab badan waxa meesha nicmaaha yaala dee aad uga may bogan kareen dadku hadday sideenan isaga kooban yihiin ilaa inagu adduunyadu markii la abuuray nabi aadam 60 dhundhun buu ahaa dherarka calayhi salaam dadku way sii gaabanayeen rifan iyo lisanun baa ku sii dhacayay ilaa inuu dhowr dhundhun ku soo hadhnay imisa dhundhun baa tahay markaas dhundhumiso 60kii dhundhun nabi aadam way sii gaabanayeen marka dadkii jannada galena ilaahay wuxuu u abuuray nololtii ugu casrisanayd dadku markay hadda wax xamaarayaan bay yiraahdaan waa shayga ugu moodaransan ee ugu casrisan baa la abuurka kii ugu casrisanaa buu ilaahay dadka abuuray ee ugu cajaa'ibsanaa saadaradeed qofkii waxa la siiyay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam 100 qof awoodood buu leeyahay xagga cunnada iyo cabidda iyo hamada iyo jimaaca ajaa'ibat dunya intaas buu wuxuu yeelanayaa 100 qof awoodood ayuu qofkaasi leeyahay barwaaqadaas halka waxa quraanku iyadoo kala noocnooxo aad iyo aad u siya badan oo inaga waramaya si aynu u cishqino oo aynu ilowno waxaan yaryare adduunyada aynu ku wareernayno ku dawaqayno salafuna saalix qaybo kamida baa dadkii saalixiinta ahaa ayaa cishqiga jannada u qabaan ilaa wayba halkanba waxa kamid ahaa imaam an-nawawi rahimahullah oo kamid ahaa culimada maguursatada ah ayaa mar la yiri maxaad u guursan weyday wuxuu warniyow anigu markaan jannada akhriyo iyo nicmada ku sugan hamigaygu halkaas uu ku xidhan yahay oo dumarka la yiri waa daahiro halka waxa la wax dhiiga iyo hawlo kale male kuwaasaan bikaaradayda ku jabinayaayo kuwaasaan la sugayaa buuri waanu kaga dhabeeyo 45 jir buu ku dhintay goobta iyada bani aadamka waxaynu leenahay ilaahay wuu bedelay dalkii hadaynu soo sheegnay dadkuna dadkii maaha dadkana adduunyada lagu yaqaan hadii qoladii imika biology iyo cilmiga xayaaga ka warrami jirtay halka way ku dawaqayaan waxba kama sheegi karaan cilmiga bani aadamkii habku u abuuran yahay dadkii halka wax ka sheegi jiray inta in leeguga ma baxsana way noloshii ma ahaba nabigu wuxuu ka waranaya calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamka markuu wax cuno ee uu cabo saxara ma laha kaadina ma laha dhidid urayana ma laha yaani noloshiis bedelid markaa bal qofkan uu liqayaa uu dhargayaa una uu wadaa haddana qashinkiisu wuxuu noqday daacayar iyo dhidid yar oo labaduba aad u udgoon yihiin oo iyaga laftigoodaba laga subkarayo ayaa wixii bay surayeen noloshiisa qofkiis bedeshay duuf male oo saxara male oo kaadi male oo dhidid uraya male oo dumarku dhiigii dhalmada iyo kii caadada male quraanku dumarka tahaara inay daahir yihiin ayaa uu ku amaanaya jannada waxyaalaha ugu sii cajiibsan waxa kamid ah markaas la wada gala jannada ninka ugu jannaya ama qofka ugu jannaya waxa la siinayaa qaaradahan adduunyada aynu imika aragnay ee dadkan meesha ku nool isku haystaan waxa maal yaala in leeg bala siinay ahadiithan macnahoodu baan idin sheegay laakiin waa wada saxiix sida ay garanayaan dadka yaqaanaan marka waxa la leeyahay adduunyada wixii xoolo yaalay oo dhan
ma kugu filantay buu ilaahay leeyahay haddaan ku siiyey waa qofkii ugu janno yaraa ilaahay oo haa buu leeyahay waa lagu labanlaabay alla sii dhargay 10 jeer baa lagu laabay baa la leeyahay marka nicmada adduunyada taalla 10 jeer la laabay ayuu kii u janno yaraa ayuu helay waxaan ku soo ururin lahaa 3 ogeysiis oo aad ugu yaab badan ayaa jannada laga ogeysiinaya yunaadi muraadi fil janna malag ilaahay oo amrayba jannada dhexdeeda ka dhawaaqaya wuxuu leeyahay lu jannihiyow waxa la idinku bushaaraynayaa waa ogeysiis somaad maqli jiray ogeysiis idaacadaha iyo tifiyada ka bax kii ugu cajiibsanaa waa ka ogeysiis la maqlo kuwa ugu farxadda badan weey waxa leedihiin inaad noolaataan oo aydan dhimanin inaad daayaraataan oo aydan gaboobin inaad caafimaad qabtaan oo weligii cudurada ku dhicin balka waran saddexdaas oo isalay nicmadii ugu wanaagsanay intaad hesho haddaad dhimanba weydaba haddaad gaboobiba weydaba haddaad xanuunsanba weydaba waxa meesha inaga helayso waxaan ma ahayn musiibadana ayna heshay